waxaa maanta magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Haw tababar u socday muddo 3 cisho ah loogu soo gabagabeeyay xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balligubadle iyo shaqaalaha ka howlgala dawladda hoose ee degmada Balligubadle aqoon kororsigan ayaa muddadii uu socday waxaa lagu baranayay kor u qaadida kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah ee dawladaha hoose waxaana tababarkaasi iska kaashaday ururada dawladaha hoose ee Soomaaliland iyo Holland ee la yiraahdo Algasal iyo FNG waxaana gunaanadkii tababarkaasi ka qayb galay barasaabka gobolka Hawd maayirka degmada Balligubadle iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Balligubadle iyo xubno kale waxaana halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balligubadle waxaynu maanta soo xidhanaa tababarkii 3 cisho noo socday ee ku saabsanaa kobcinta awoodda dhaqaale ee degmada Balligubadle oo ka mid ah 3 degmo oo pilot district ah loo qaatay qorshe ahaan in laga hormariyo dhaqaalaha maxalliga ah si dhaqaalay degmada kor loogu qaado waa Balligubadle Saylac iyo Laascaanood kulli aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tababarkan anagoo ah ururkii dawladaha hoose kuna hadlay magaciisa iyo ururka iska kaashadeen ururka dawladaha hoose Holland FNG runaantii aad baan idinka mahad celinayaa ka qayb galayaasha iyo sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen tababarka u qaateen si ay ugu anfacaan bulshadooda xildhibaanada iyo shaqaalaha kale dawladda hoose waxaan aad iyo aad aan u wacyigelinayaa bulshada ama shaqaalaha ka qayb qaatay inay si fiican uga faa'iideystaan oo aan ku dhaqanno tababarkan la siiyay aqoontan la siiyay kana faa'iideysano ugana faa'iidino degmada faa'iidada ay u leedahay dawladda hoose tababarkan 3 cisho noo socday macallimiintii tababarkan siinaysayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen xogayaha dawladda hoose ee degmada Balligubadle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed maanta waxay noo soo xidhmay 3 maalmood oo aynu kaga qayb qaadanaynay sidii aynu u horumarin lahayn ama aynu dhaqaale ugu samayn lahayn degmadeena aqoontan halkan ay noo soo bandhigeen ururka dawladaha hoose ee dalku waxay ahayd in degmo waliba wixii loo soo bandhigay ay sii horumariso oo ay ku dhaqanto oo ay ku horumariso bulshada iyo deegaanka oo quruxda maanta deegaankoodu ay ka muuqato wixii neela barayay runtii waxaan uga mahad celinayaa agaasimaha ururka dawladaha hoose Khalid iyo tiimkiisa iyo inta la soo bixisa qaaraanka iyo hawshaba ka qayb qaadatay FNG ay ugu horeyso wasaaraddeena had iyo jeer roolka ugu muhiimsan ku leh wasaaraddeena arrimaha gudaha iyo inta xukuumadda dhexe ka qayb qaadataba waxaan leeyahay degmooyinka waa degmooyin u baahan arrimahan aad soo jeediseen iyo arrimahan lagu horumarinayo degmooyinka maanta waxay noo soo xidhmay seminaarkii 3 cisho noo socday ee hay'adda ururka dawladda hoose Algasal iyo hay'adda FNG ay wadeen taasoo ah kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah ee dawladda hoose kulli dawladda hoose waxa loo baahan yahay wixii 3 cisho aad baranaysiin in aad ku shaqeysaan oo horumarisaan oo dadkiina gaarsiisaan 3 cisho seminar baad qaadateen waxaa loogu talagalay oo la inii siinayay waxay inaad dadkiina ku anfacdaan ka dawlad hoose ahaana iyo shaqaalaheedana tacabka layni geliyey waa mid layni kula xisaabtami doono marka aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa sida fiicanaad waqtiga u ilaaliseen ee ay idinuga faa'iideysateen hay'adda dawladaha hoose aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa iyo hay'adaha dawladaha hoose iyaguna FNG amba Holland iyaguna waa ku mahadsan yihiin mashaariicda noocan waa kuwa kor loogu qaaday lagu kobciyo degmooyinka Maxamed Jiciir waxba TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle